بسم الله الرحمن الرحيم والصحافيات كان maanta wuxuu ku saabsan yahay sanad guuradii 20aad ka soo wareegtay 2000 markii la dejiyay qaraarkii ahaa 2325 tirsigiisu ahaa 2325 kaasoo loogu hadlay qaraarkaas haweenka iyo amniga wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo kaashanaysa ururada bulshada ayaa gudagalay xanaanka sameynta qorshe howleed qaran oo lagu hirgelinayo ahdiga haweenka Soomaaliyeed iyo qaraarkaas oo tirsigiisu ahaa 2325 ahdiga haweenka Soomaaliyeed waa natiijo ka soo baxday la tashiyo sanadkii hore ka dhacay shirweynihii haweenka Soomaaliyeed wuxuuna suurto gelinayaa qaab loogu sii wado dhisidda isbahaysiyo cusub oo u oleeya haweenka sidoo kale awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed tan iyo shirweynihii haweenka Soomaaliyeed ee ka dhacay dalka wasaaradda haweenka waxay bilowday shir xanaan loo dhan yahay oo hoos ka bilaabanaya daba socda ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxaana kamid ahaa dejinta qorshe howleedo arintaas qaas oo ah dawladda xubnaha dawladda federaalka intooda badan iyagoo loo adeegayo hab ku saleysan wada tashi oo ay hogaaminayso wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha ayay qaadeen tallaabooyin dheeriya kuwaasoo ay ahdi ku yeelanayaan waxayna dejiyeen qorshe howleedo lagu filinayo ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxaana ay ballan qaadeen inay si buuxda u ansixiyaan ahdiga haweenka Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya duruufaha gaarka ah ee gobol walba si gaar ah u haysato wasaaradda waxay bilaabi doontaa madal loogu talagalay howlahaas toddobaadyo soo socdo hormuudna ay ka noqon doonto sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona howlahaas dawladda xubnaha dawladda federaalka sidoo kale guddi hogaamineed ama steering committee oo madax banaan kuwaas oo ka shaqeyn doona horumarinta tiirarka ahdiga una heelan doona inay ka shaqeeyaan qoreemida dumarka iyo ajendayaasha gabdhaha Soomaaliyeed si awood loo siiyo haweenka Soomaaliyeed tiirarka ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxay kala yihiin sida ka qaybgalka siyaasadda joojinta xadgudubyada ka dhanka ah ama tacdiyada iyo kufsiga loo geysto gabdhaha sugidda cadaalad loo dhan yahay iskaashi ka dhaxeeya dhammaan heerarka dhammaan dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka sidoo kale gudiyada madax banaan ee u dooda haweenka sidoo kale isbedelka cimilada waxaana meesha ku sii jira wali dib u heshiisiin iyo nabadeynta awoodsiinta dhaqaalaha hal abuurnimo loo dhan yahay wasaaradda iyadoo ay waxaas oo dhan qayb ka yihiin waajibaadkeeda ayay sii wadi doontaa u doodista inay helaan haweenka Soomaaliyeed matalaad buuxda dhammaan hay'adaha sharci dejinta si ay qayb ugu noqdaan go'aanka gaarista dalka sidoo kale waxaa qayb ka ah inay u doodaan inay ka helaan matalaad buuxda heer maamul goboleed dawladaha xubnaha dawladda federaalka ahdiga haweenka Soomaaliyeed ma ahan oo kaliya inuu helo arimahaas laakiin wuxuu siinayaa qaab howleed sanadkan 2020 waxay ku beegan tahay sanad guuradii 20aad ee qaraarkii qaramada midoobay golaha ammaanka tirsigiisu ahaa 2325 kaasoo ahaa qaraarkii ugu horeeyay ee uu golaha ammaanka ka soo saaro haweenka nabadda iyo amniga kaasoo la ansixiyay 31 Oktoobar 2000 waxaan idinku dhiirigelinayaa in xoogga la saaro balaarinta ka qaybgalka haweenka talada hogaaminta dalka haweenka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 50% in ka badan sidaas darteed muhiim bay u tahay dalkeena in ay qayb ka ahaadaan matalaadda iyo go'aanka gaarista dalka aad ayaad u mahadsantihiin